السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada walaalaha qaaliga youtube channelkayga la socotaan waa Shams Official. mugdiga ka raali ahaada xilli habeenan duubaya run ahaantii waxaa rabay inaan ka hadlo subxaanallah arrin aniga ahaan aad uga naxay aanan hadeertaan wax yar ka hor aan arkay waxaa dhacday in mar kale ay diintii dib uga baxdo maama malyuun ama MMS ayadoo dhibaato ka cabanayso dad dhibaateeyay ay dhibaato ka sheeganayso ee leedahay dadkaas ay dhibaateeyay nin bay codkiisa shidaysaa oo aad u aflagaadeynayo dartiisana diinta uga baxay leedahay subxaanallah ani horta maraw inaan maamadii ku xadgudbo dad dhibaateeyay way jiraan laakiin qofka ku dhibaateynaya waxaa abuuray ilaahay adigana waxaa ku abuuray allah subxaanahu wa tacaala dartiis ayaana diintan u wadataa oo allihii ku abuurtay ayaa muslimkaa dhigay kuuna dooray diintii dhabta ahayd adduunkana waxaa la isku keenay imtixaan marka qofkaas aa isku dhacdaan dartiis inaad diinta uga baxdo marna kusoo noqoto marna uga baxdo waa wax laga qurux badan yahay wax walbana waxaa u muhiim ah qofka bini'aadanka inuu muslimka ahna iimaan leeyahay iimaanka allah kugu sugo run ahaantii qofka markuu iimaankiisa daciifo waxyaabo fara badan oo ka suurtageli jirin markuu iimaankiisa fiicnaa ayaa ka suurtagalayo marka nafsadeedayba halis u tahaan isleeyahay maamadaas inay ayada dhib isgaarsiiso run ahaantii dhibka weynna ma jiro inaad diintaada islaamka aa ka baxdid oo qof dartiis aa uga baxdid ama si kale aa uga baxdid oo calaamad kristaani inta kusoo qoratay intee kusoo qoratay marabaan inaa videogaas neela shaargareeyo waa aadi kartiin waa soo arki kartiin idinkaba marka maamada wiilka dhibaateynayana kulley waa nin rag ah oo boqolow ah wax ayaga ka dhaxeeyo oo xumaan ahna anaga ma ogin laakiin hadda ka horna waa isku dhaceen haddana isku dhacoodii dib usoo noqday marka waxaan dhihi lahaa nin rag ah oo boqolow ah oo hooyo dhashay oo gabar la dhalatay oo laga yaabo inuu dhalay inuu gabar dhibaatada intaa la gaarsiiyo uu asagiina u noqdo wado inay gabadhaas diinti ka baxdo waa wax laga qurux badan yahay wiilkaas walaalkay waxaan dhihi lahay gabadhan walaashaaya iska daa oo qof walba 2 mitir sugayay xumaanta intaas la eg iyo qodada iska dhaafa haduu ilaahay raali ka noqdo ayadana waxaan dhihi lahay qof bil aadana miyaa diinta ugu jirtaa mase diinta waxaa ugu jirtaa allah ku abuurtay inaad raali geliso oo ku doorashada inaad noqoto qof muslim ah diinta islaamka waa ku dhalatay waad ku soo barbaartay micnaheeda fahansan tahay waad ku ilmo dhashay ayeeyaa tahay maanta ma tihid qof dhalinyaro ah oo wuu ilduufay la dhihi karo ma tihid waxaa tahay qof wax walba fahansan laakiin wax walba waxaa muhiim ah horta qofkan maskixiyan caadi ma yahay iimaankiisi ma fadhiyaa hadduusan qofka iimaankiisi fadhin aqliga bini'aadanka caadiga oo leeyahay waxaa ka dambadanaya iimaankaaga inuu fadhiyo hadduusan fadhin iimaankaaga maalinba wax aan lagaa filaynina kaa suurtoobaya inay kaa imaadaan xataa inaad naftaada dishid marka waxaan ku dhihi lahay maamo ilaahaygaaga ku abuurta u noqo calaamadahani waxaan as kusoo qoqorta kulley waa ani waxaan is dhihi karaa waa qalin sunniyeed iyo indhakuul iyo wax lamid aha isleeyahay inta iska tirtirtay allihii ku abuurta u noqo wiilkan aas ku dhacdayna dartiis diinta uguma aaday jirin dartiisna inaa uga baxdo waa qalad marka weli waa ku jecelnahay oo walaasheenaa tahay oo kuu nasteexaynaynaa walow aan cilmi badan lahayn haddana waxaan arkaa waxaa ku socotid inay wax fiican ahayn marka ilaahay u noqo oo qof dartiis diinta ha ugu jirin qof dartiisna diinta ha uga bixin qof kastoo ku dhibaateeyeen shalay markaa social media kusoo biirtay waa usoo bareertay marka ha u joojinin aniga ku dhihi lahay ilaahayna isku xir raali ahaada xoogaa videogu aha keenuneeda uga soo kacday marka waxaa wax laga xumaado ah in maxaa la dhihi jiray kaa gasho diintaada qof bili-aadana muhiim maahan dadkan haddii xataa cadow kugu noqdaan inaa ayaga dartood aad diinta aa uga baxdo si kasta oo istareysto si kasta oo dhibaato u dareento allah subxaana wa tacaala waxaa waaye allihii loo cararayo xaggiisa ma ahan markaad dhibaato dareento inay xaggiisa kasoo cararto marka waxaan dhihi lahay marka ilaahay xaqa hana waafajiyo xoogaan adna qurxa qasooso marka waa iloowo warki meesha marsiinaya ka waramahay ayadaa korka ku haya degdeg soo kacday marka subxaanallah wax laga xumaado waayo oo laga naxo marka ilaahay waxaa ka rajeynayaa inay kasoo noqoto oyna qof dartiis diinteeda aysan uga bixin dhib kastoo kusoo wajaho allah waa qofkii loo cararaayay ma ahan allah waa qofkii loo cararaayay laakiin ma ahan in markaa dad dhibaateeyaan oo dhibaato dareenta aa ka cararto subxaanallah
كورن قف بالآدم درتي سالة دينتي وكاغا بعي هدي معجزة كوكو دعض كور وحبا ما قبن كرسيد قف بالآدم عطاي بالآدم مركان هاي إلهي انت وح أو نوقبتي عابداد عابدينو سكين كمد أحكاه إلهي أبالكي سكو موجود كرنو عافي مادو كسي لحداد اللحاد وطام كاغا دقي ودن أمانه كوجيي نمعة كجرتا الحمد لله أولاده كسي ميلا جسارته مانتا يعني وقت جسارته ما بكجرتد إلهي حتى دباتك كستكر كاغا إلا أي عرب كاغا توترحي قال حتى الله سبحانه وتعالى إنا عابدا لا يظهر iskabada inaad dad dartood aad diinta uga baxdo waa kaa waaninaya waana iska aqrisan waa dareemaysaan waxaa la arki jiray xilliga hore maamo ama qof weyn ama hooyo ah oo qofki markaa ama cunuga dhali karta lamid ah ama soo dhaweyso ay maxaa la dhihi jiray waaniso laakiin hadda maxaa socoto qofku dhali kara inaa waanisid subxaanallah waa wax laga yaabo ilaahay subxaana watacaala hana badbaadiyo oo iimaanka hanagu sugo ilaahayna nama waalo ilaahayna iimaanka hanagu sugo mar kaleeto arrin aan aad iyo aad uga naxay ahayd aad iyo aadna uga xumaaday inay aragtiin in kale ma ogi mugdiya ku jirnaa u maleynayaa maqrib ay noo tahay cirka dhan waa isxiray marka leersas u iftiin badanna ma iishidno marka waxaan ila qaybsanaya kaliya ina maamadan usoo duceysaan subxaanallah inaa usoo duceysaan ilaahay soo celiyo diintana aan laga dhigin dhar aa gashanaysid oo marna siibaysid marna kusoo noqonaysid maxaa la dhihi jiray ilaahayna xaqa hana waafajiyo way jiraan hadda soomaali marka waagii hore waxaa lagu faani jiray soomaali awal waxay ahayd dad boqolkiiba boqol islaam ahayd ama muslim ah laakiin maanta maxay noqotay waxaaba u maleynaaba boqolkiiba konton inay hadda muslim yihiin kontonka kaleetana oo gaala oo qarsoon inay jiraan walow aan waayahan dambe arkayo dad ku faanaya gaalnimada subxaanallah wax lagu faano maaha gaalnimo waa wax laga yaqyaqsoodo ilaahay baana ka magan galnay waa ku faraxsanahay inaan muslim ahay gabar muslimada ahay alxamdulilah ilaahayga ii doorana waa uga xamdinayaa taas ma fahanteen marka insha allah iimaankeena allah noo sugo markiis idinka gelin inaad calaamad xun soo dhigdhigataan oo wax aad og tahay inay been tahay inaa caabudid waa wax aqliga bini'aadanka gelaynin marka hadduu qofka shaydaan duleeyay laakiin dhagay indha ma lahan marka ilaahay baa ka magan galnay ilaahay baana laga magan galaa ilaahayna hana asturo meel walbo joogno kale waa hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed waaye ma aflagaadeynayna laakiin waa u duceynaynaa laakiin inuusan salfudeed qaadin marka la rajeynaynaa haddana ay ka soo noqoto insha Allah usoo duceeyay idinka dhanna usoo duceeyay haddii ilaahay raali ka noqdo yaa la soo aflagaadeynin dhibaato hadda waxay tabanayso mid kaleetana in loogu daro waa laga qurux badan yahay waana hooyo Soomaaliyeed waana gabar Soomaaliyeed mar kale loo soo duceeyay haddii ilaahay raali ka noqdo aniga run ahaantii aad iyo aad uga naxay wallahi intaasoo jeer maxaa la jiray mar gaalooda jirtay waxaas oo dhan wallahi ma ka soo hadlin hadda maasha Allah ayaama horreeyta maraan la socday ee Nairobi joogtay dhaysi markaan hadda tookada markaan noqdo xajkan aadaya ii soo duceeya salaadeeda ma fiicna laakiin salaadeeda saxaaya maasha Allah aad ugu farxay run ahaantii maanta maxaa arkay wax aan filaynin arka subxaanallah ma filaynin mar kale inay dhaceyso ma fahanteen markii ilaahay xaqa hana waafajiyo subxaanallah wax laga xumaado waay arintaaseeti ilaahayna ma nagu keeno maamadana Allah soo hadeeyo ilaahay iimaanka ha u dajiyo iimaanka mar hadduu dhaqdhaqaaqo bis waa qofka bini'aadanka maalinba wax xitaa inuu naftiisa dilo meesha imaanayso marka iimaanka Allah nagu sugo ayadana iimaanka Allah ku sugo saasa idin leeyahay walaalaha igu cusub waa soo dhaweynayaa markasta waana u mahad celinayaa walaalihii hore ila jooga maalintan bilaabay ilaa maanta ila joogayna aad iyo aad aan igu mahad celinayaa kuwa soo biiranay sidoo kale idinkana videogan intaana ku ekeenayaa haddaa muuqaalkan daawatay oo dhameysatay aad u mahadsan tahay haddaa haaf uga tagta xataa waa mahadsan tahay yaa muhiimadda waxaa ka hadlaa inaa fahantay fariin u reebta maamada usoo duceysay aflagaado ma jirto oo ma looga baahna meeshaanayti marka insha Allah is dhiirigelino is soo dhaweyno aan garab is siino aan istaageerno marka videogan waa soo gabagabeynayaa video lamida inta ku kulmeynana waxaa idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh